maalinta 14 February ee loo yaqaano maalinta jacaylka aduunka ama Valentine's Day. Dalalka reer galbeedka maalintaas waxaa la isdhaafsadaa fariimaha jacaylka xambaarsan. Dadka isjecel way isla xiriiraan iyagoo muujinaya in la joogo maalinta ku weyn jacaylka, ayna qasab tahay qof walba oo wax jecel maalintaas in laga dareemo. Waxayna u arkaan inay tahay maalinta uu dhashay jacaylku ama uu xornimadiisa helay, sidaas darteedna ay waajib tahay in la xuso xushmadeedana la siiyo. maalintaas waxay bilaabantay xilligii boqortooyadii Romaaniskii hore. 14 February-na waxay u ahayd maalin ay weyneeyaan Juno oo ahayd boqoradda ilaahyadii Romaaniska. Waxay kaloo u aqoonsanaayeen Juno ilaahada haweenka iyo guurka. Maalinta xigta oo ah 15 February waxaa bilowda xuska Lupercalia oo isna ahaa waxay caabudi jireen Roomaanku. Waxay aaminsanaayeen Lupercalia uu yahay ilaah nolosha. wiilasha iyo gabdhuhu ay kala fogeed xilligaas u dabaaldegidda Lupercalia intaanu bilaaban. saacado ka hor ayaana magacyada gabdhaha Roomaanka waxaa lagu qori jiray warqado, sanduuq ayaana lagu ridi jiray si loo xusho nasiib ahaan. wiilasha dhalinyarada ahina waxay dooran jireen gabadha ay nasiibka u helaan, waxayna haysan jireen inta uu socdo dabaaldegaas. waxaana laga yaabaa in ay ilmo ka dhex dhashaan wiilasha iyo gabdhaha habeenadaas isla tumanayay, iyadoo oo laga yaabo in ay kadib isjeclaadaan ama isguursadaan. sanad walbana mid cusub ayaa la qaadan jiray. boqortooyadaas oo la odhan jiray boqorkeeda Empire Claudius-kii labaad ee Roma wuxuu geli jiray dagaalo dhiig badan uu ku daato. boqorka Claudius wuxuu ku dhibanaa inuu helo askar si uu xoojiyo ciidankiisa iyo dagaaladii uu galayay. wuxuu rumaysnaa in aysan nimanka Roomaanisku rabin in ay ka tagaan jacaylkooda iyo qoyskooda. Claudius wuxuu ka joojiyay boqortooyadii Rome guurkii oo dhan. wuxuu mamnuucay in la isguursado si ninku uunan u yeelan qof uu ku xidhnaado, beddelkeedana si dabaaldegga Lupercalia ay iskula raaxaystaan ragga iyo dumarka, guurkuna meesha uga baxo. Valentine xilligaa wuxuu qaatay diinta Kiristaanka. Rome-na waxaa ka talinaysay dowladdii Claudius-kii labaad, waxayna caabudi jireen ilaahyo ay samaysteen iyo asnaam. Valentine dowladda ayaa xidhay xilligaas kadib markuu qaatay diinta Kiristaanka. Valentine iyo Saint Marius waxay taageereen dhibanayaashii Kiristaanka ahaa ee loo diiday guurka. dhowr qofna si qarsoodi ah ayay isugu dareen. arrintaas daraaddeed ayaa Saint iyo Valentine loo xidhay, waana la garaacay ilaa uu ka dhinto Valentine. waxayna u yaqaanaan Kiristaanku shahiidkii jacaylka. 14 February ayaa waxaa dhintay Valentine. waqti kadib taariikhdaasi Rome waxay ka noqotay mid khaas ah oo la xuso sanad walba bisha February, waana la faafiyay iyadoo lagu weyneynayo wadaadkoodii Valentine oo ay sheegaan inuu u shahiiday jacaylka dartiis, iyo ilaahoodii Lupercalis oo isna la xusi jiray maalinta xigta. habeenka ka horeeya ay tahay 14 bisha February waxaa la qaybin jiray gabdhaha si ay u dabaaldegaan. sababta ay u xusayaanna waxaad ka fahmi kartaa taariikhda aynu soo sheegnay.